dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Galguduud ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 15 qof in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa ku salaysan daaq iyo biyo waxayna u dhaxeeyaan laba maleeshiyo beeleed oo wadadega deegaanadaasi. Qaybaha bulshada gobolka ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo kala dhex galo dhinacyada dagaalamaya. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintan ka wareystay Sheekh Muxidiin Yuusuf Barre, gudoomiyaha dalada culimada Galmudug. aad baa umahadsantahay culimada meelay joogaanba waxay ku baaqayaan si guud colaada dadka muslimiinta ah dhexdooda ka socota gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan Galmudug colaadaha ka jira waxay ku baaqayaan in la joojiyo waxayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan colaadaas diminteeda colaadahaas oo ka socda meesha la yiraahdo Baraag agagaarkeeda oo dhinaca maxaan ku iraahay koonfure gobolka Mudug iyo Galgaduud ay iska galaan iyo meelaha Qalanqale iyo Xananbuuro dagaaladaas oo meelo fool xun sii taabanaya haddii la fiirsadana oo sidaa ay u sii socdaanna ay dhici karto musiibo iyo dhibaatooyin ballaaran inay geystaan waxay culimmadu xusuusinayaan dadka walaalaha ah ee muslimiinta ee ilaahayba ku tilmaamay hadday xataa diriraan walaalnimadu inaysan dhammaanayn iimaanku inuusan dhammaanayn ee ay iimaanka walaalo ku yihiin nasab iyo dhaliyo iyo deris ay walaalo ku yihiin waxay culimmadu ugu baaqayaan ilaahay jalla wacala inay ka baqaan maatada iyo masaakiinta la dhammaynayana ilaahay looga baqo maalinta qiyaame qof walbaa wuxuu imaanayaa asagoo wuxuu galabsaday sita sida awgeed mas-uuliyiinta maamulka Galmudug heerarkiisa kala duwan culimmadu waxay ugu baaqayaan arrintaas inay xil culus iska saaraan amniga waxa loo sameeyey dadka amniga u xil saaran amniga waxa loo sameeyey arrintaas ugu muhiimsan haddaan wax laga qabanaya ciidamada kala duwan ee amniga ah ee faraha badan oo jooga aysan wax ka qabanna waxaa soo baxaya dayac loo nisbayn doono maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanada ku nool ayaa soo baxaya. Sheekh Muxidiin kasoo baaqiinan ma jiraan wax ficil ah oo culimo u diinka ay u qaadeen dhinaca colaada si loo damiyo oo dadka loo kala dhex galo markii dhibaato ay timaado oo xumi iyo munkar ay dhacdo tilaabada koowaad oo la qaada awood in la isticmaalo tilaabada labaadna waxa weeye in codka la isticmaalo tilaabada saddexaadna waxay tahay qalbiga in la isticmaalo waxaan ku talinaynaa tilaabada koowaad ee awoodda dawladdu inay isticmaasho culimmadu waxay ku leeyihiin tilaabada labaad oo hadalka iyo wacyigelinta iyo talabixinta iyo waanada laakiin tilaabada koowaad ee meeshan hadda ku habboon waa tii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadi qofkii xumi arka iyo munkar ha ku zuuliyo awooddiisa asagoo isticmaalaya taasna dawladda ayaa iskale culimadiina waxaad ka kooban tihiin deegaanada Galmudug oo idil labadiisa gobol maxaad adinka tilaabo ugu qaadi weyseen maadaama bulshada ay u dhagan nugul yihiin maqalka iyo dhagaysiga culimada runtii dad badan oo culimo arrintaa ku jira way jiraan si gaargaara oo shakhsiga dad ugu jira si guud dad ugu jira ayaa jira waa runtii mayna dhicin hadda ka hor labada gobol culimo ka wada socota inay arrintaasi midaysan u wajahaan laakiin shakhsiyaad runtii aan ku ammaanayo oo maxaan ku idhaahay weliba deegaanada Galgaduud ka tirsan ayaa jira oo si gaara ugu jira culummada inteeda kalena waxay diyaar u yihiin inay kala qayb qaataan waqtigii ku habboon oo ay munaasab u noqoto insha allahu tacaala colaadda hadda Qalanqale iyo Xananbuuro waxay maraysaa meeshii ugu liidatay oo waxaa ku dhimanaya birmageeda markay noqoto waxaa la dilay haween waxaa la dilay dad odayaal ah oo aan waxba galabsan oo dagaalka ku jirin marka maxaad isleedihiin colaadaas halka way ku haysaa runtii colaadda Soomaalidu wax saa u sii macno weyn ma wax xigmad ku salaysan ma wax maanta haddii miisaan la saaro qiimo badan oo ka soo baxaya ma midda ugu badan waxaa la isku hayaa deegaan iyo daaqsin waxa ugu badan intaas weey deegaan iyo daaqsin baa la isku hayaa ayadana xalkeeda maamulka ayaa ugu muhiimsan waxa laga rabo heerka ay marayso aad sheegaysidna runtii heer aad u foolxun weeye xitaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan hadda idinku birmageydada aa leedihiin 1400 sano muddo ka horeysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlay markuu ciidamada dirahayo oo la dardaarmayo haweenka inaan la dilin
ubadka yaryarka iyo carruurta inaan la dilin, odayaasha duqoobay inaan la dilin, dadka diinta u abtirsanaya ee xitaa markaa dadka lagu duulayo gaaladaa ka mida ee diinta u abtirsanaya inaan la taaban, geedaha iyo deegaanka inaan la fasaadin. waxaa hadda adduunku birmageedyada u yaqaana halkaa bay ka soo bilowdeen. marka waxay keeni kartaa cawaaqib xumo aad iyo aad maxaanku orahay u foolxun. waxa dagaalkaasi ku salaysan yahana waa oon deegaan iyo daaqsin. intaan anu ogahay xogtiisa ma dhaafsiisna. waa laga heshiin karaa, dhulka waa la wada daaqi karaa, deegaanka waa la wada degi karaa. haddaan la wada degi karin waa la qaybsan karaa, daaqsintana waa la wadaagi karaa. dowladdaana xilkaa ugu culus saaran yahay, culummaduna diyaar bay inay gacan ka geystaan insha allahu tacaala. madaxda dowlad goboleedka galmudug ma iska aragteen arrintaas culimaa udiinkiina ahaan? waan iska aragnay runtii, waana kala hadalnay. waxayna noola muuqdeen inay arrintaas aad iyo aad diyaar ugu yihiin, inay awoodooda dowladnimo ay wax uga qabtaanna ay diyaar u yihiin bay noola muuqdeen. haddana sidii markaanu is aragnay aan ugala hadalnay baan haddana ugala hadlaynaa. runtii maamulka gaar ahaan madaxweynuhu asagaaba si gaara noogu boorinayay. dadka bulshada qaybaha kala duwana oo loo kulmana qayb walbana wuu kala hadlayay runtii arrintaas. asaguna wuxuu muujinayay arrintaasi culayska ay leedahay iyo maxaanku idhahay muhiimadda uu siinayay iyo xilka uu iska saarayay. aad iyo aad baana u bogaadinaynaa dhammaan intii meesha ka geysata gacan. ilaahay jalla wacalaa inuu ku badbaadiyo dadka masaakiintaah meesha ku dhimanaya oo ku dhibaataysan. kaasi waxa uu ahaa sheekh muxidiin yuusuf bare, gudoomiyaha dalladda culimada galmudug.